ودلمي وي وحرام وي كون قفو لا يقانو magacyadooda la yaqaano inuu waliba 20 block 30 block iska ooto hooyaduna ay u maartay u haraadan tahay 9 mitir iyo 10 mitir waxaan gaadhayn hadal badani ma yaala halkan waa ducun baa taala muxsiniinta kalkaal charity organization ku soo hagaajiyay lacagta ay 6,100 ka ah guriga lagu dhameystirayo waynu ducaynaynaa dadkii u soo dhiibay ee ku soo hagaajiyay waynu ducaynaynaa Allah ka jisaysiyo Allah ka soo saarayna tukalo badan Allah uga soo geliyo gudoomiyaha degmadana iyo shaqaalihiisa iyo shaqaalaha koostonka degmada koostonka waxaan ugu ducaynaynaa inay dhulkii danta guud maalinba intay helaan ilaalinayaan oo ay maalinba qoys u baahan oo baahi u qaba inay siinayaan haddii dhici jirtay in baloorka yar ummaddu leeda soo baxaba in iskaga tagrifalo in ilaahay maanta ina siiyay gudoomiyaal degmo oo aakhiro iyo ajar iyo janno baadi doonaya oo ku baadi doonaya xiftiga iyo ilaalinta hantida ummadda si markaasi hooyadan oo kale marka ay u baahato ay baahi u qabato dhul inay hesho oo dulmi weeye waa xaraan weeye kun qof oo la yaqaano magacyadooda la yaqaano inuu waliba 20 block 30 block iska ooto hooyaduna ay u maartay u haraadan tahay 9 mitir iyo 10 mitir waxaan gaadhayn dhulku way nagu filan yahay marka bisanka loo qabto ee sharciga lagu maamulo ee dadka xun ee ka ganacsanaya ee ummadda dhulka ciriiriga ku galiyay laga qabto gudoomiye waan kugu mahadcelinayaa waan kugu ammaanayaa ilaahay hortiisa ayaanu marakaaganahay inaanan anagoon ogeyn aad soo sheegtay dhulka danta guud degmada ku yaala kanoo kaliya ma iyagoo fara badan waad ku tagrifari kari lahayd waad qarsan kari lahayd adiga dadaalay ilaahay adiga iyo shaqaalahaaga waxaan ilaahay ka baryaa in ilaahay janno idinku bedelo oo adduunka inta sugtaan khayr idinkii ubadkiini orihiinuba heshaan aakhirana insha Allah janno ay heshaan hooyo wadu ducayn doontaa shaqaalaha koostonka iyo dawladda hoose iyo muxsiniintii xogaaga yar guriga lagu dhameystirayo soo ururisay intaba annagana waxaan noo farxadaan oo guli deegaanka metelaya in guriga yar lagaaga dul yabayo qowl hore waxa dhici jirtay qofka miskiinka marka guri loo dhisayo haddana inuu iibsado lacagtii la soo ururiyay lagu iibiyo dhul oo inta dhulkii liibay muddo haddana la baadi doon tago laakiin maanta dhul lagu siiyo adigu aad leedahay in maartay gurigaaga lagaaga dul dhisayo 2 blood oo 9 mitir iyo 10 mitir marka la isku darana noqonaya 20 mitir iyo 9 mitir ayuu kaarkoodu ka yahay kaasad ku deganaanaysa mar alle yaala markay ka soo go'dana faylkaaga samaysanaysa isagoo bilaasha oo cashuur laga qaadin ayaa lagu siinaya hadaad ka ku deganaatana waa sharci isaga laftigiisu waa sharci intaad awood u yeelanayso dukaan ku korayo adaguna marka cashuur bixiyo u noqonayso si qof adigoo kalaana wax loo taro cashuurta laga qaaday adiga shalay aad uma bixin kareen cashuur marka insha Allah dukaanka ganacsiga balan qaad lagu furo adiguna cashuur bixiyo aad noqoto dabeetana insha Allah ta'ala qof hooyo adigoo kala iyaduna dhiban in marka wax la taro dalka u ducee magaaladana u ducee muxsiniinta iyo muslimiinta ku wada dadaalina u ducee insha Allah kaarkaagana wad haysan wad xifdiyan waa kii dhulkaaga sheegay insha Allah ta'ala maalintaad fayl u baahateen faylka lagaaga sameeyay Allah ku barakeeyo